waxaan soo bilownay aan kusoo guda jirnay casharadeenii ahaa amenorrhea. shalay waxaan kasoo hadalnay lecture 1 aan kusoo bilownaan dhahnay amenorrhea 1 iyo amenorrhea 2. amenorrhea 1 waxaan usoo hadlay si guud aan usoo fahnay ciwaanka muxuu ahaa, kadibna waxaan sii galnay mawduuc la yiraahdo primary amenorrhea. primary amenorrhea aan isku kala qaybnay laba qaybood. qaybta koowaad kasoo hadalnay aan lecture 1 uga soo hadalnay oo naga hadlaynay cryptomenorrhea ama false menorrhea. kadibna lecture-ka waxaan soo bilownay true mataqaana amenorrhea. waxaan kasoo hadalnay afartii pathway aan dhahnay oo kor aan kasoo bilaabnay. waxaan dhahnay hypothalamus-kii, pituitary gland-gii, ovary sama and uterus. shalay waxaan soo dhamaynay hypothalamus-ka iyo pituitary gland-gii, ovary-gina waan soo bilownay. waxaan soo sheegnay in ovary loo qaybinayo dhahnay afar qaybood inay sababi karto inuu ovary mataqaana oo shaqadiisa qabsanayo, inuu noqdo congenital ahaan, inuu maqan yahay uterus-kii ovary inay maqan tahay oo ovarian agenesis ama dysgenesis oo ah shaqadeedii ay yaraatay sida Turner syndrome. sidoo kale waxaa lagu yaqaan testicular feminization syndrome. labadaas aad ugu caansan markii la yiraahdo congenitalka of ovary mataqaana inay absent tahay ama ay shaqadeedii gabtay. testicular feminization syndrome-ka waxa waa arki doona waa nin caadi ah laakiin female waa ku arki doona ovary dhama lahan. age dysgenesis waxaan waa sida Turner syndrome. waxaa noqon karta trauma inaan soo sheegnay oo ovarectomy lagu sameeyo inflammatory ashsharaayaan kasoo hadalnay. kadib waxaan ku bilaabinaa number 2. waxaan ugu muhiimsan ama the most common cause waxyaaba ugu badan oo sababa amenorrhea waxaan waa primary amenorrhea. waxyaaba ugu badan waxaa loo yaqaanaa Turner syndrome. Turner syndrome is the most common cause of the primary amenorrhea. masalan waxaa sababa dhahnay ovary-ga waxay yihiin dysgenesis ama inay shaqadu meeshii ovary ahaan qaabkii waa joogaa laakiin ma shaqadii laga rabo ma qabanayso. markii la joogo Turner syndrome waxaan waxay ka kooban tahay wada genotype-keeda waa 45x0 45x0 yani waxaa laga noqdo 45 يعني سوري 46 اكس 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 كما قمر كما هذا اكس كما ده 45 واي ما هي نقطه 46 اللي نقطه اكس اكس هذا مركز اكس كما قمر 45 واي كين كان كو غرنا صور اسمعوا فهم دونا انت شوت درجه جاي بولي كنت سنتيمتر واركتنا وبت نيك واركتنا قارتيدا متقانا قاد u sameysanta qawriya oo gaaban oo soo xiriirsan warka wabit neck waarkatana sawirka wide space nipples labada space waxa aad u ballaaran yahay ama u weyn yahay. breasting si fiican ma korin inuu not well develop ma lahan yani waa sida infantile caruur camal waa ma lahan qaabkii oo qof weyn oo qaan gaar. sidoo kale waxaa la socon kara loo yaqaano coarctation of aorta yani coarctation of aorta la socon karo la socdo sometimes cardiac ama renal anomalies la socdaan. marka aad fiiriso banaanka external genitalia waxaa arkaysaa waa infantile yani ma baha ma qof weyn waa sida infantile kii waa caruur waa weyn waana qof gaan waa ku imaan complaint ka cabanaya amenorrhea ma qof weyn. internal genitalia gudaha ma ku jiro. ovary waxaa waa strict ovary yani waxa waa cibaar can waa fibrous band yani maaha follicle ma lahan ma shaqeynayso marka ovary magacaan u joogto meesha. marka soo ka ugu sheega kana waxa loo yaqaan Turner syndrome yani waxa loo yaqaan wide space level influence base waxa waa weyn waa kana fiirin space ka fiir waa weyn waxa loo yaqaan yani labada space ku dhaxaysa waxa loo yaqaan sidoo kale breast waxa not well develop sama. sidoo kale waxa waa short. sidoo kale waxaan leenahay waxaan noo taniinay skin waxa fault skin oo ana neck sama ku soo xiriirsan waa taniin waa kana webbed neck sama fiir qaabka u sameeyay waxaan leenahay qorti waa webbed neck sama qorti waxaan leenahay waa kasan. waxaa la socon karaa pulsation of aorta ama heart problem ama renal problem ayaa la socon karo. ovary waa kana ka fiirsan yani ovary waxaan leenahay waa yani si fiican uma gorin gonaadalka. marka waxaan leenahay meesha qaab wuxuu joogaa oo soo mataqaana fibrous bundle camal uu joogaa. banaanka marka fiirsana waxaa leenahay wax menstruation ma dhacayo. banaankeedana waxaa leenahay waa infantile yani mataqaana qaabka u muuqato ma qof oo qaan gaar ah camal waa infantile caruur camal waa weli. marka dis waxaa leenahay waa mataqaana waa Turner syndrome lagudina the most common cause inuu yahay. waxyaaba lagu garanaa dibudi infestation waxaan garanaa wallahi estrogen-keedu arkaysa waa low yani low estrogen estrogen-keedu aad u hooseeya. high FSH-keedan aad ayuu u badan yahay. FSH-keedan waa sareeya waa FSH ku badan yahay maxaa yeelay pituitary gland-gii iyo hypothalamus waxay isku dayaan inay saxaan problem-ka. maxay ku saxayaan marka hypothalamus waxay soo deynaa gonadotropin releasing hormone. pituitary gland waxay soo deynaa FSH mataqaana mushkiladan loo xalliyo. mushkilad marka ma xallismayso ovary ma joogo lana FSH ku horgesha SF waxa la waa follicular waa follicular stimulating hormone. waxay rabaan in follicles stimulation garaan si ovulation loo sameeyo si estrogen loo soo daayo laakiin already follicle ma lahanba yani hooyada marka gabadha Turner syndrome ovary-geeda ma bahan follicle. marka waxaan leenahay FSH ku ahaa ku rabaa mushkilada sax mana saxi karo. marka waa FSH-keeda waa high estrogen-keeda ma hooseeya. treatment-geeda marka wuxuu yahay la siiyo cyclic estrogen and progesterone. waxaa la estrogen progesterone loo siinaa si maadaama oo bas estrogen laan ay tahay si stimulation lagu sameeyo breast-ga uu koro
menstruation inuu u imaado mataqaan dhiig kasoo baxo iyo prevent in la joojiyo osteoporosis yani estrogen wuxuu qabtaa female ku qabtaa wuxuu yareeyaa osteoporosis inay boonkii mataqaana aysan noqon osteoporosis aysan mataqaana jabin iyo waxaas isaga waxaan lenahay cardiovascular يعني cardiovascular disease sida stroke disease kale ay estrogen oo yareeyaa sabab waxaan dadka marka female tahay estrogen keeda oo hay yani waxaan lenahay wuxuu ku dadaalay ku neen hal MI soo myocardial infarction so ما استمر وكنت أقول لك كم قمر وكيان أقول على كيل قمر قمر معي استراتيجية سيكفي أي هاي استراتيجية رسالة مصير عندك كيف تغير 16 سنة وين أو سنين محيرة تغير 16 سنة كيرتها هاي الدانسي وحدا هاي يعني واحد هرماي كلوز أي واحد كلها إبيفيس يعني ماشي الوقت اللي أنا حلوة إبيفيس إبيفيس كبرت أيام مركز أيام متقنة أيام حرام مركز على الدرجة بيكسرين واحد يحلو قاعد أندروجين إنسنسيتيفيتي سندروم أندروجين أيضا راح نصير 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 ماتيرنال سندروم تريتمنت تيجي كلينيكال برزنتيشن كذا عن تايمز كذا بس أسر من ويدينا كذا كتب 45 إكس 0 إن التهايم 45 إكس يس إذا كان بقى إكس كذا كم وافات كان لبعض حنا هو أندروجين إنسنسيتيفيتي سندروم اللي هو كان تستيكولار فيمينيزيشن سندروم أندروجين إنسنسيتيفيتي وإكس لينكد ديزيز واحد ريسبونس ما سمينا أيو أندروجين إسكان waxaana badan oo mataqaana oo soo direen testis wuxuu soo jooga wuxuu ku jira cunuga ku dhex jira calooshiisa sama abdominka ay ugu jira testiskiisa ma soo degin marka wuxuu soo diray androgen laakiin androgenkii uu la soo deenayo yani jirka ma response gareenayo waa insensitivity yani waxaa dhacay end organ insensitivity yani jirkii la rabay in stimulation uu ku sameeyo androgenkii mataqaana ma istijaaban ku sameeyo response ku sameeyo so marka wuxuu noqonayaa inuu noqdo female noqdo oo loo yaqaano feminine direction qaabka female ay u koraa laakiin waa nin caadi ah kii hadii wadada karyotype maxaa waa 46 XY waa nin caadi ah waa male waa lagu androgen sensitivity waa male gudaha marka fiirso genotype waa male laakiin testiskii ayaa la rabay inay response oo sameeyo jirkii ayaan sameeynin waxa la dhacay end organ insensitivity ama waxa la not to response androgen secretion oo soo diray testis كان ku arkarna maxay tahay waa qaab oo female oo yahay waa attractive female oo yahay well developed breast oo leeyahay waa female caadi ah female oo aaminsan gabadha fita laakiin mushkilada maxaa waaye hada breast aad taabato ma lahan wax oo mataqaana glands ma lahan marka fiirso only waa fat la ku jira meesha with small nipples waa small pubic and axillary hair ma lahan wax hair oo pubic qof qangaar kuma ilaa 16 jira wax pubic hair and axillary hair ma lahan sidoo kale waxaan lenahay waa masculinized female waa female laakiin muruqa leh oo nin internal genitalia maxaa waa testis interos darab maxay ahayd waa ovary samata laakiin waxaa lenahay testis gudaha ku jira interabdominal yani waxaa lenahay waxaa jira testis aan soo degin oo ku jira wada sida caadiga ah cunug markuu calooshooda ku jiro testiska ay sameysmaan waxay ku sameysaa abdominka kadib ayay soo degayaan waxay soo galayaan scrotum marka scrotum sameysmaayo mana soo degayo wuxuu ku jira abdominkiisa ayuu ku dhex jiraa gudihiisa laakiin wuxuu soo diraa hormoneski oo mataqaana oo soo diraa test oo soo diraa certified cells ayaa waxay soo dirayaan anti malarial hormone waxay sameynayaan marka waxay sameynayaan inuu aan la sameynin mataqaana malaria inaan la sameyno ah uteruski mataqaana fallopian tube wixii lama ayaan sameysmaynin mifan sida caadi waxaan arki doonaa markaan kala doon malaria energy waxaan leenahay sida caadi marka cunugga sameysmo doo meel noqdo wuxuu soo test sameysmaa test wuxuu soo diri doonaa waxa anti malaria hormone ama sama yani joojina malaria hormones ay joojina yani inhibitor factors oo malaria joojina malaria marka maxay siinaysaa sida caadiga waxay siinaysaa marka female laakiin mala hormoonka mala joojinayo malaria hormone ma soo deynayso marka female gabadha x ay noqoto marka malaria ayaa wuxuu siinaa hadhow uteruski oo doona fallopian tube fajinaysa marka ninkan already testis wuxuu soo deynaa shaqadiisu qabsaday wuxuu soo deynaa hormoonki wuxuu joojiyay malaria hormone soo qoyay waxa la wax uterus malaha wax fallopian tube wax female gudaha female kama lahanba kale waa vaginal pouch tamam vaginal pouch yani god yar jiro vagina ah laakiin vagina weyn ma waa doon intii waa soo furi doona isba kala yani soo laga qaaday afarta qofood oo mataqaana isku mid ahaa oo mataqaana xy waa male waa soo xy waa male malahan genital appearance waxay leeyihiin sorry waa male laakiin u muuqda inay female yihiin yani fiirada waa kana waa breast sama يعني بريست waxaa moodaa female iyo wuxuu leeyahay loo yaqaano vaginal pouch marka female moodas laakiin female ma marka xy waa nin rag caadi waa production wuxuu androgen soo deynaa laakiin normal ahaanayaan maxaa yeelay jirka ma waxaa ka maqan lack of androgen receptors yani ajiib lahayaa maqan waxaan u bixinaba
insensitive ismo androgen insensitive syndrome yani androgen markii soo daa jirka ka howlgeli karo fiifaantay sidoo waxaan leeyahay condition waxaan leeyahay yani waa kala duwan yihiin sama darajo ahaan degree from smaller than the average the sama yani inuu lahaado penis to genitalia that develop the female yani waxa lahaana female yani degrees ka wada duwan oo smaller than the average penis oo lahaana laakiin uu ka yaraana ki normal ka ah genitalia lagu garanayo so marka wuxuu ogaan female gudaha marka ka fiiriso banaanka soo fiiriso wuxuu ogaan female infiltration cudurka waa normal waxaa la isoo sameeyaa testosterone waxaa arkaysaa testosterone laga raba ninka ayuu leeyahay waa 300 soma sida caadi inuu ka bato marka uu dirto estrogen waxaa arkaysaa sidoo kale waa normal male inta laga raba laga helaa yani soma estrogen waxaa ku badan female male kan waa ka yar marka numberka male ka heleysaa yani waa yar so marka waxaan leeyahay ayadana FSH average marka rabta ayadana waa normal yani waxaan leeyahay gabadhi marka waxaan leeyahay saaxiib dormati meel ay tahay treatment-keeda waxaa leenahay saaxiibada aad ugu gowrci waxaa ka cabanaysa amenorrhea inuu sidii ka imaanay laakiin sida saxda ah waxaa tahay female male ay aslan inaad tahay waxaana jiro test shacba kugu jira caloosha abdomen ku jiro gudaha wax uterus ma lihid wax fallopian tube ma lihid laakiin female ayaa tahay male ayaa tahay sorry ugu qanacsan treatment waxaa la fahamsan female hana u sii deynaysa maadaama female ugu martaxaamad suqraankii iyo xaafadina gabar ay ka tahay farxiyo ka tahay farxaan loo bedeli karo marka waxaan leeyahay the patient intuu ka gaaray 16 to 18 years old inuu bridge si fiican u soo baxo and then waxa loo soo xalay gonadotropin ereyga gonadotropin maxaa laga waxaan ka soo bixin aniga testiska ka soo bixin waa test u soo bixina waxay test waxay keenay hadhow image lagu daayo inta abdomen hadii ku sida waxay keenaysaa inuu noqdo cancer carcinoma ama malignancy ayuu noqonaa daawada waxaan siinaa estrogen replacement therapy sama mo bana progesterone waayo laano ay qof oo gabadh female kasto waxaan siinaa wax loo yaqaan estrogen iyo progesterone isku daraa laakiin halka mar waa markii aan isku diray marka ma baahan waxaan siinaysaa only estrogen waayo estrogen u siinaysaa progesterone loo baahan maxaa yeelay waxaan leenahay waxaan u siinaynin progesterone wuxuu uu balance gareeyaa estrogen ayuu balance gareeyaa uteruska soo dawada uterus leedahay only estrogen siiyo waxaan ku ziyaadaa risk of cancer soma laakiin markuu progesterone joogo uu ka celinaa hadda laakiin ninkan waa nin waayba ma baahan wax uterus ma laha maadaama uterus leedahay waxaan leenahay only see estrogen laakiin ay hormone replacement oo la siinayo ay kasto oo la rabo estrogen la waxa lagu daraa progesterone maxaa yeelay progesterone shaqadii estrogen ay balance gareeyo of uterus wuxuu ka yeelanaa inuu san mataqaana oo san cancer ku sababay marka hooyo ma sii gatid oo estrogen kaliis la siin ma jirto adduunka hooyo nool oo caafimaad qabto uterus leh estrogen kaliis lama sii karo combination hadda anita dhigin hadda terminal syndrome hadda dhigin si estrogen and progesterone tan laakiin only estrogen replacement service why maxaa yeelay progesterone mu baahan maayo maxaa yeelay uterus meesha ma balahan uterus maadaama isla wax cabsi ma jirto aan ka cabsanayno inuu uterine cancer dhaco laana estrogen kaliya waxay keenaysaa uterine cancer ma jirto daawo kaliya daawo kasoo estrogen waa xaalad socda progesterone marka faa'iido laga leeyahay xataa inay female ahaan sida estrogenkaasina waxay in gabadha female laga sii dhigo sama female isfac u sii ekaan maadaama gabadha female tahay baa gudahana mataqaana waxaan u fura vaginal pouch kan u fura sama yani dilatation gradual dilatation or plastic surgery loo sameeyo waa loo fura vaginal loo fura gabar caadi iska noqonaysa maadaama ay pregnancy iyo wixii nama ay leedahay gudahana ma lahan wax uterus ma lahan marka uterus maadaama isla badan waxaan leenahay uur ma qaadi karto maadaama uterus leeyahay uterus ma lahan ma lahan dadka usoo baxnay causes of ovary qaabka usoo garta amenorrhea aad waxaan u gudbinaa uterus waxaan aad waxaan noqon karaa sidoo kale congenital waxaa kamid malarian agents waxaa maqan malarian agent uterus laba absent of the uterus sama uterus wuu joogaa laakiin waa hypoplasia sidoo kale waxaa kara inflammation waxay sabab tahay uteruski inuu mataqaana oo sababi karo inuu sameeyo isku dhago Asherman syndrome sameeyo traumatic waxaa laga wax hysterectomy la baxsho shaq waxaa laga bixiyo uteruska laga bixiyo ama Asherman syndrome waa evacuation iyo curettage loo sameeyay injury wuxuu gaaray uteruski kadib uu isku dhigay Asherman badana labada waxay sababi karaan secondary amenorrhea sama waxa rabaa kullu faasama marka ku sheegay all uterus wax sababi karo in amenorrhea dhacdo ama noqoto primary ama secondary laakiin waxaan si ku xooga saarayna dhahnay waxyaaba qosay primary hadda taan soo hadalnay Turner syndrome overall ka soo qaadanay Turner syndrome waxaan ka soo qaadanay iyo waxaan ka soo qaadanay samo male androgen insufficient syndrome sama uterus waxaan ka qaadanay waxaan ku soo congenital markii primary la joogo laakiin kuwan waxay sababi karaan secondary amenorrhea sama marka mid uu soo ko waxaan bilaabay marka malarian agents malarian agents maxay tahay malarian agents waxaan leenahay yani waxa failure garoobayo development of malarian duct cunug marka caloosha ku jiro waxa loo yaqaan malarian duct tagaas ayaa wuxuu isiina hadhow way koray marka gabar noqoto malarian duct wuxuu isii doonaa wax loo yaqaano arki doona development wuxuu isii doonaa TUP uteruski markii asagii ayaa failure garoobaa kuma intaan asigelin aan taano si aan u fahmo anatomy oo laabo embryology oo laabanayna
qaabkii u samaysmaan internal genital organs of the female qaabkii u samaysmaan يعني markii la joogo mostly the female genital tract mostly qaalibiyada ama inta ugu badan majority waxa ay ka imaadaan malarian dhagti wallahi ul dheer oo leeyahay malarian dhagti ayaa oo laba dhinac kala imaanaysa ayaa sameyn doona yani internal genital organs marka gabadha ku jirto 5 to 6 week intrauterine life yani markii calooshooda ku jirto waxa dhacay malarian duct develop aan waxaan leenahay wuxuuna isiinaysaa inuu mataqaana intermediate cell mass 2 malarian duct laba xabo raadi lafta ka imaanayaan waxay sameeyaan marka inay mataqaana labada sare kala imaanayaan aan garow soo korayso gradually andana waxaan leeyahay waxay isku imaanayaan meel dhexe meeshana marka isku imaanayaan waxaan leenahay marka ay sameeyaan inay infusion ama fusion inay isku dhigaan sameeyaan marka isku dhigaan marka waxaan leenahay wuxuu dhacaa 7 to 8 week oo dhacaa marka isku dhigaan marka ay siinayaan labada dhinac kana waa fluid tube kana waa fluid tube dhinac kala imaanaya kan fluid tube ka imaanaya kana fluid tube laba waxay siinayaan right and left fluid tube marka dhaxal isku imaanaan ay isku dhigaan waxay sameeyaan uteruski iyo cervixki iyo upper part of the vagina ayaa isinayo malarian ductiga marka malarian duct dad sameysmi waayo ama fibroid waxa dhacay hooyada uterus ma lahaynayso mifad malarian duct wuxuu isiyaa labada fluid tube right and left uteruski cervixki upper part of the vagina with the best answer muhiim waa inaad iska garabto inaad malarian duct wuxuu inta ku siiyaa wala marka ashkan waxaan malarian agents marka waxa dhahnay waxa dhacayo waxa failure garooba inay midoobaan ama development oo sameeyo malaria dhagtiga inuu sameeyo ma bada failure garooba markaas waxay keenaysaa marka waxay keenaysaa inuu ka maqnaa absence fluid tube uterus tamarihi and upper part of the vagina ayadana ma jiro yani uteruski cervixki ma jiraan iyo upper part of the vagina ma sameeyo maxay leeyahay kii maana malaria dhagti waliba upper part of the vagina qaybta hoose oo maana upper part oo kii maana malaria hadii lagu weydiiyo marka kerotype waa gabar caadi gabar ah 46XX waa female caadi ah la gabar waa phenotype keeda waa female kerotype keeda waa 46XX yani waxaan leenahay sometimes waxa la socon kara markii other abnormality yani mesela waxa common adomestic waxa hadii weydiiyo waxa la socon kara other anomalies waxa leedahay renal anomalies renal waxa soo jeeda Turner syndrome kale Turner syndrome waxa la mostly waxa la socon kara waxa la coordination of our sama kana mostly waxa la socon kara waa renal anomalies renal agenesis horse shape kidney تمام هذا ما يلصق abnormal of the renal على سكر سكر يعني على سكر واحد لو يقال skeletal abnormality sida scoliosis iyo waxa la socon cardiac anomalies laakiin the most common waxa waa renal marka waxa marka malaria agents ee la socoto renal anomalies iyo skeletal anomalies waxa loo yaqaan magacaas Mayer Ricott Sky Koster Hauser syndrome magaca loo yaqaan markii oo la socdo malaria agents kala socdo waxaan dhima waxba isku dhimin fahmin malaria agents ina faanto inuu yahay waa gabar tahay female 46 jiro in la socon karto abnormality of the kidney renal agents in la socon karaan perfect and skeletal anomalies in la socon karaan marka waxaan hadii guud clinical features oo la imaanay malarian agents maxay malaria agents ka badan waxa leenahay 15 to 18 years old age ay badan waxa ku imaanaysaa primary ana waxaan leenahay most ayada gabadhan 15 18 maraysa waxa la doctor aniga female ahay kala iska arag oo ay toosan laakiin doctor waxaan leenahay wax cycle oo imaan ama hooyada ku keenay doctor gabadhan waxba cycle kama imaan waxay sii marto sano jir ma fahmi waxay leedahay kulay doctor secondary section normal ovarigeeda normal waa shaqeena marka waxay leedahay gabadhan بريستيجنا سمعت دكتور حلوة جوده ما شاء الله وكنا بريستيج وفي حوالي هاي ما شاء الله وين ومسؤول وين يبي هار كده ما شاء الله ويتنتي وصباح إكزيل الهار ولا دكتور واحد ما قلنا مرة دكتور لكن بس قبل يديك كإيمان على دكتور إيه ماشي حاجة بنا ها دع على الوقت واحد واحد اسمه الوجود والواي إنه هذا بريستيج الأولاد هاي بيبي واحد ما أولاد سكندري وحلا سكندري سكشوال كانت واي أولاد واحد أولاد هاي محير أنا أوفري وإيه في عين لأن هي بصراحة تكون في عين بديت رجال وإيه في عين أوفري وإيه في عين سنت حداث وإيه في عين يفهم دكتور مش كده حاجه او كلي يوترس كاي مقنينكي افراد اي مقنينكي افراد سومالي هاي بطلمس marka kuwa shaqadooda qabsadeen hay badnaa waxay soo dees galotromilis hormone pituitary gland wuxuu soo dahay ninka la leeyahay mataqaana ay fasaad yahay wuxuu ka howlgalay ovary wuxuu soo daayay estrogen gabadha marka waxa uu normal waxaan waa gabar breast leh biyo hair leh exer hair kaalis ka arag laakiin wax dhiiga oo cycle ma jiro inta samifan waayo soo jirin maxay uterus ka maqan يعني waxa la yaqaan malaria agents marka dib BV-ga waxa inuu hataa soo fiican waxa arkaysa yani ina taabanayso inuu jiro power jiro oo uterus uu absent yahay marka aan dadana ultrasound to confirm ultrasound wuxuu leeyahay absent of uterus wuxuu leeyahay uterus ma jiro ayuu leeyahay marka waxaan leenahay the management what is the management of the mataqaanadu uu dhaho ninka leeyahay malaria agents waxaan leenahay
repair aan u samayso vaginal agency karto oo saxina god yar u samayso waxaa yeele waxaa samaysa qaybtii hoose lower vagina laakiin upper vagina ma samayso waa u fura vagina waa u fura sama dilatation ugu sameynaa vaginoplasty waa loo furaa vaginoplasty markii loo sameeyo mostly yani badanaa waxaa loo sameeyaa markii guurso rabto sama ama about to be married ayay u furaysaa main complication ka keenta waxaa kamid ah vaginoplasty inay keento stenosis sama inuu meesha xariir noqdo iyo dyspareunia ereyga dyspareunia maxaa waaye painful with sexual markii lagu jiro sexual activity lagu jiro wuxuu keenaa xanuun waxaa lagu dhahaa marka dyspareunia ereyga dyspareunia maxaa waaye waa xanuun marka uu sexual oo socdo wuxuu marka doctor dyspareunia ay hadhow kale ka cabanaysa marka meesha xariiray ka noqonaysa sama this female war waxaa iska weydii karaa dhow laakiin badan islaamka ma isticmaalo wadamada gaalada waxay dhaawacaysa waxay leeyihiin waxay awood u leedahay gabadhaan inay uur qaado waay waxay kuli maxay biologically yani way qaadi kartaa uur waay waxay ovrigeeda u fiican yahay maadaama ovrigeeda u fiican yahay oocyda lasoo qaada marka oocyda lasoo qaada ninkan waxaa laga soo qaadaa semenka ninkan waxaa laga soo qaadaya semenkiisa lasoo qaada gabadhan oocyteeda lasoo qaada waxaa loo sameynaya IVF oo ah in vitro fertilization sama marka waxaa la in vitro fertilization la sameeyaa markii lasoo sameeyo markii gabadha normal tahay waa lagu celinaa ayada lagu celinaa uteruskeeda lagu celinaa tan laakiin uterus mara intaa la geena maadaama uteruskan gaado waxay dhaheen waxaa loo dhahaa surrogate yani surrogate mother allah yani hooyooyin oo la ijaarto rixmkooda la ijaarina yani ninkaan naag gabadha ku jira daafica ku jira iisoo qaad ninka seminka iisoo qaad dhac saygood marka noqoto waxaan ugu tallaalaynaa hooyo kale uteruskeeda waxaa la marka dad ijaarta jiro lacaga lagu qaata lacaga lagu siinaa cunugeega caloosha ku beerana hadda markii ama qalin noqoto ama caadi loo soo dhaliyo cunugeega kaa soo qaadana wabillahi tawfiiq ala iskala cunug waxaa la surrogate mother cunugan waxaan ku tallaalnaa hooyo kale marka islaamka ma ogolo ya islaamka ma ogolo inaan cunug naagta lagu tallaasho cilmihii yani ayada oo kunka naagta ukunta la soo qaada ninkii naagta asqada ukunta la jiido waa sax laakiin waxay idin ayada lagu celiyo sida hadda IVF maxaa la sameeya IVF in vitro fertilization gabadha lagu celina uteruskeeda tan no uteruska lagu soo tallaala lacaga la siinaa dhac lacaga caadina la siinaa cunugaas waa lagu waardiinaa naaya haye cunug soo yahay hiye waa la mutaabicin umaad hadda marka waxaa ka soo qaadanaysaa waxaa la way ijaartaa gaalada marka waxaa la dad waxaa jirta xasku shaqo lacag keeno waxaa la surrogate mothers la hooyooyin mataqan rixmkooda ijaarta primary emerald markii la joogo yani waxaan u kala qaybi karaa lixdaas number 1 iyo number 2 number 1 number 2 waxaa leenahay breast ay joogo uterus ma jooga maadaama oo prem oo joogo breast and uterus ay joogaan labadooda ay joogaan madana number 1 iyo number 2 maxaa waaye waa cashkii ugu horeeyay aqsaan loo yaqaano cryptomenorrhea ama false menorrhea maxaa waaye number 2 ugu caansana waxaa dhaysaa hymankii imperforate hyman yani wada hyperforate oo fiican yahay uterus oo fiican yahay ovary oo fiican yahay uterus oo fiican yahay marka waxaa leenahay breast-ga fiican minus waxaa waaye breast wuxuu miraayad u yahay oo uu sheega inuu ovary shaqeynaayo breast-ga wuxuu miraayad u yahay ovary inuu shaqeynaayo marka ovary waxaa ma joogaan waxaa breast waxaa leenahay waa imperforate hyman number 2 transfer vaginal septum som transfer vagina yani waxaa meesha septum xiraa transfer vaginal septum xiraayo marka waxaa leenahay waa breast iyo ovary marka joogaan waxaa leenahay waa number 2 cryptomenorrhea waa labadaas ugu caansanaa number 3 iyo number 4 maxaa ka dhaxeeya breast ay leeyihiin laakiin uterus ma laha breast yaal raad marka cashan soo dhamay soo sharxay dib u raadi doona breast jooga breast jooga number 2 maxaa nahay had ugu dambeeyay halin oo ah Mullerian agenesis maxaa waaye breast kana ma leedahay maxay basal ka shaqeynaya ovary oo shaqeynaya waxna ma shaqeynaya ninka uterus gabadha uterus ku sakan baqan number 2 xalina waa Mullerian number 3 Mullerian agenesis yani breast jooga laakiin uterus ma jooga number 4 waa kulata adig kuna qas waxna wanaysa ninka la yiraahdo androgen insensitivity syndrome sama androgen ninkii aniga waa nin caadi ah wuxuu leeyahay testis uu leeyahay uterus ma laha banaanka waxa uu yahay small vaginal breast uu leeyahay waa tan laakiin glandis waay wala gland ma laha yani waa only the fat waay sama marka labadan ayada waxaan leeyahay breast ay leeyahay laakiin uterus ma laha yaa waay Mullerian agenesis iyo male sorry waxa laga qaano androgen insensitivity syndrome okay number 5 number 6 maxay breast ma laha بريجا بريس مالها كروة مشكلة كده جدا وهذا الثالمس pituitary gland في ovary ستة حاسة مثل قبل 18 نمبر كو حنقول منها نمبر كو حنقول عن تارنر سندروم واحد قبل ovary واحد قبلين ovary مش شغالة تارنر سندروم ovary ما دام مش شغالين بريست مالها لكن يوترس ولا حاليا تارنر سندروم بريست مالها نمبر اللي حيوان نمبر تحنا كر hypothalamus and pituitary failure and hypothalamo pituitary failure ayalla hypothalamus kama shaqeynaa pituitary laba mid kamid ah shaqeyn hypothalamo pituitary failure waxaana waxa breast dhamar laakiin uterus ay leedahay waxaan rajaynayaa inay fahamteen sama hadda kan kale yani si guud ayaan rabaa inaan ku fahansiiyo hal mar isha soo raac waxaan leenahay problem sama number 2 primary amenorrhea maadaama primary amenorrhea ay tahay يعني waa young female waay maxay ka cabanaysaa complaint of primary amenorrhea sama
waxaan u sameynaa examination ayaa waxaan u sameynaa secondary sexual characterka u sameynaa lamida noqonaysaa sooma dhankan bidixda su-aal dhanka bidixda waxaan dhahnay waa wealthful yani waxaan leenahay waxaan fiiriyey secondary sexualki characterkan fiiriyey gabadhan secondary male secondary sexual maxaa waay pubic hair axillary hair breastic iyo wixii malada yes waa leedahay haddaa islaan xagga aadi doona midiga aadi doona bidix su-aal bidix waxaan ana way leedahay maadaama ay leedahay maxaa sameynaysaa maadaama ay leedahay waxaan sameynaysaa rectal examination ama bv examination yani ama imaging ayaan u sameynaa belfic marka imaging sameeyo maxaan fiirinaa uteruski ma joogaa mase uu maqan yahay uteruski waa maqan yahay bidixda si-aal haddii uu maqan yahay maxaa dhacayo breastiga waa absent haye markuu maqan yahay laba mida noqonaysaa marka hadaan breast absent yahay axillary hairkii ma joogaa mase ma joogo soma waxaan usame waxa loo yaqaano kirotab aan sameyna soma yani waxaan axillary pubic hairkii ayaa maqan axillary pubic hairkii ayaa ayadana muu joogaa marka waxaan usameynaa kirotabna u sameynayna marka kirotab markaan u sameyna waxaan arkaynaa marka haddii uu noqdo 45xy 45xy muxuu noqonaa testicular feminization syndrome soma ninkaan leeyahay absent pubic hairkina ma lahan 46xy waaye testicular feminization syndrome ala haddii oo axillary hairka uu leeyahay masir waxaan leynaa waa malarian agencies doctor way fahantaan ayaan rajeynaa ko waxaan kusoo bilaaban lahanay waxaan u sameynaa secondary sexual ma leedahaa haddii leedahay waxaan leenahay uteruskeeda hala fiiriyo ma joogaa mise ma joogo hadduu joogo waxaan leenahay labadooda waa maqan yahay soo markuu maqan yahay ka hadal markuu maqan yahay waxaa lamida noqonaa inuu malarian agencies noqdo ama inuu noqdo testicular feminization taadii soo sheegana waa waxaan lagu kala saara pubic hair tan ma laha tan way leedahay kan intana geey uteruska joogo uteruska hadduu joogo lamida noqonaya outflow obstruction maa jiro yani uteruska wuu joogaa ovary waxaa maa shaqeynaya inay jiro outflow obstruction cryptominori inta dhehayna inverted hymanki iyo wixii sama haye ama waxaa leedahay normal outflow obstruction ma jiro waa normal normalka ay tahay waxaan sameynaa wax loo yaqaano waxaan fiirinayna prolactin levelka LH iyo FSH ma fahanta yani obstruction yani wax xiran ma jiraan inverted hyman ma jirto yani wax ka xiran ma jiraan hooyada waa u furan yahay outflow level uteruska wuu joogaa waxaa markaan fiiriy maxay noqonaysaa laba mida noqonaysaa in LH FSH ay hooseeyaan LH-ka iyo FSH marka hooseeya minus waxay ibsanaysaa inuu hypothalamo pituitary failure jiro LH iyo FSH hooseeya minus hooyadan waxaa ka qaldanayna hypothalamo pituitary failure kor ay ka qaldan tabaata hypothalamo pituitary ayaan shaqaynaynin taasi waxaa leena LH iyo FSH ka hooseeya okay LH iyo FSH ka duu sareeyo waxaa leena musalax loo yaqaan waa BCO polycystic ovarian disease oo ashir gooni oo hal doona polycystic ovarian disease number 3 waxaa leenahay hadduu prolactin ka bato yani meesha matansa prolactin duu bato maxaa dhacaya FSH LH hoos u dhacaya minus waxaan fiirinaa thyroid stimulator hormone TSH waxa la soo thyroid stimulator hormone lamida noqonaa yaanu normal noqdo yaanu high noqdo hadduu high noqdo maxaa leenahay hadduu high noqdo waxaa leenahay mushkilad waxay jirtaa leenahay yani hypothyroidism jirto soo hypothyroidism jirto hypothyroidism ayaa wuxuu sababaan leenahay hypothyroidism hoos u dhacay ayaa wuxuu sababaan leenahay inuu prolactin oo baxo haddii uu normal yahay thyroid stimulator hormone uu normal yahay waxaan u direynaa loo yaqaan MRI iyo CT iska waxaan fiirinaynaa inay jirto tumor soma oo prolactinoma inay jirta ayaan ka fiirinaynaa mifan doctor prolactin imisa ka fiir hadday high yihiin prolactinku uu haya lamida high ka dhigi karto inuu hypothyroidism oo jiro qofka oo hypothyroidism oo prolactinka uu kiciyey ama inuu jiro normal TSH ay tahana inaan CT u tirnaa maskaxda uga fiirino qofka maskaxdiisa fiirinayna hadday waxa laga yaabaa sababta prolactinoma soma tumor prolactin ka sabax haye number qaybta waxaan soo aaday midkana keen waxaan ahanay hooyadan examination u sameeyay secondary social character dhan ma lahan haddii salahay marka laba mid noqonaysaa sooma ovary-geeda inaan fiirino ovary markaan fiirino haddii ovary-ga uu yahay strict yani gonaad ama uu yahay fibrous aan taa dhihin waxaan ka fiirinaysaa calaamadihii oo Turner syndrome baan ka fiirinaynaa calaamadaha Turner syndrome markaan ku arko khalaas waxaan leenahay maadaama section aysan lahayn calaamadaha haddii lagu arko waxaan leenahay already khalaas waxaan leenahay waa Turner syndrome haddii ay mataqaana dhinaca kale aado aan haddii ay development oo la socdo anosmia waxaa waan ahnay waqti oranti iyo waxa ka maqan haddii anosmia la socdo shay waxaa leenahay waa Kallman syndrome sama waxaa waa Kallman syndrome waxaan aydan waxay ku fudanaysaa dhawaan hadhow treatment-gaaga inaad fahanto cayshka ku fudanaysa the most common cause of cervical from primary hemorrhage with imtixaanka waxaa leedahay Turner syndrome best answer what is the most Turner syndrome the second would be cryptomenorrhea that would be malarian agencies after fertilization intaas ayaan usoo gabagabaynaynaa casharkeenii maantay waxaan rajeynaynaa fahanteen insha allah beri ayaan soo gabagabay doonaa